waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar si rasmi ah uga qabsoomay kulan wacyigelin oo ay soo abaabuleen jilayaasha Jawaan iyo Sooraan kulankan oo ay ku wacyigelinayeen bulshada waxqabadka xukuumadda iyo waliba ka qayb qaadashada wadada dheer ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Sanaag kulankan wacyigelinta ay soo qaban qaabiyeen jilayaasha Jawaan iyo Sooraan ayaa waxa ay ka soo qayb galay boqolaal dadweynaha kuwaas dhuuxayay macnaha kulankan wacyigelinta uu leeyahay jilayaashan ayaa iyagu dadka ku wacyigelinayay sida looga qayb qaadan lahaa horumarka dalka ay hormuud ka tahay wadada dheer ee isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer sidoo kalena waxa ay jilayaashan soo bandhigeen intii ay kulanka wacyigelinta ku guda jireen macaanka ay nabadu leedahay haddaba dadweynaha gobolka Saraar dhabaantiin waxaan idin sheegaynaa inuu qof kasta iyo gobol kasta dhinaciisa wuxuu qabsado waayo waxaad maanta arkaysaa qof gurigiisa hortiisa ay biyo ku jiraan laba reer u dhaxaysa oo biyo ku qurmeen oo carruurtii durayga iyo waxa haysta yaabayso oo haddaad tiraahdo war maxaad biyaan isaga qaban weydana wuxuu qoodhanaya dowladda hoose maxay looga qaban weyday waa dowlad hoose lagu qaaday labayska lagu ciido ku shubaabay ahayd waxa weeye walaalayaal filkii waan idiin soo daayaynaa dib u dhig ma waadi ka qayb qaado dib u dhiska dalkaaga waa fil sawiraa waa qaabka wadooyinka loo wado waa wixii inoo qabsoomay iyo waxa inoo qabyana qof kasta waxa gobolada iyo dadkuba sidoo isugu xidhmi lahaa maanta ka hor taagan inay loo qabyan yihiin sida awgeed waxaan idinku adkaynaynaa war marka aad qof muwaadin tahay wixii aad kaga qayb qaadan karto dib u dhiska dalkaaga aad bay muhiim u tahay mid labaad maanta markaad wax ku darsato wadada la samaynayo inta yar aad ku darsatay waxaad tahay muwaadin wadada wax ku leh dhaqaalaheeda iyo lixishadeedu way ku gelayaan sida awgeed qof kasta oo muwaadin ah ka qayb qaato dib u dhiska dalkiisa waxaan kaloo idin leeyahay dadweynaha ku dhaqan gobolka Saraar deegaanka dadka degan xaq dhowr baa isku leedihiin xushmad baa isku leedihiin isxaq dhowra ilaashada nabadgelyadiina si kastaba ha ahaatee kulanka wacyigelinta jilayaasha Jawaan iyo Sooraan ay ka fuliyeen qayb ka mid ah gudaha magaalada Caynaba ayaa ah mid ay ka sinaan doonaan gobolada bariga Soomaaliland iyadoo subaxii saaka ahna u sii kicitimay xagga iyo magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waana markii ugu horeysay ee jilayaasha Sooraan iyo Jawaan kulan noocan oo kala oo turjumaya waxqabadka xukuumadda Soomaaliland oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamuud Sinaayo iyo waliba ka qayb qaadashada wadada dheer ee isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer ay ka fuliyeen magaalada Caynaba maslax Salmaan sida Koronto telefishinka caalamiga ee Somali Channel Caynaba.